qalad oo dadka lacagaha cryptocurrency ku cusub ay sameeyaan ha gelin qaladyadan dad badan ayaa gala cryptocurrency iyagoo rajo ka qaba inay si degdeg ah lacag u sameeyaan balse qaladaad yaryar ayaa keena khasaaro weyn haddii aad ku cusub tahay cryptocurrency ama lacagaha digitalka ah ka fogow shantan qalad ugu horreyn walaal YouTube-kan waxaan uga hadalnaa online business-ka iyo self development-ka horumarinta shakhsiyadda haddii aad ka helayso mowduucyadaas ugu soo biir oo YouTube-ka subscribe noo saar like noo saar sidoo kale Facebook page-keena ku soo biir shantan qalad oo inta badan ay ku dhacaan dadka ku cusub lacagaha cryptocurrency ama lacagaha digitalka ahi kow waxa weeye inaad gasho crypto adigoo aan wax fahma aan ka haysan lacagahan cryptocurrency inaad iska gasho oo tiraahdo waa maal gashanaya ama waa ka tireer gareynaya adigoo aan waxba aqoon aan u lahayn taasi waa qodobka koowaad ee sababa marka in khasaaro aad la kulanto qalad weyn waa inaad lacag geliso adigoo aan fahmin waxaad iibsanayso crypto ma aha nasiib waa aqoon iyo cilmi halku wuxuu noqonayaa baro horta lacagahan sida ay u shaqeeyaan bitcoin iyo altcoinska iyo sida suuqu u shaqeeyo ka hor inta aadan gelin lama rabo qofaa wuxuu maqlayaa crypto lacag baa laga sameeyaa isla markii waa iska gelayaa marka aqoon la'aantaasi waxay keenaysaa marka inaad khasaare la kulanto marka inta aadan crypto aadan gelin waa inaad aqoonteeda barataa waa inaad aad u fahantaa markaad suuqa iyo sida u shaqeeyo fahanto marka haddaad ka tireer garanaysa ka tireer gare haddaad maal gashanaysa maal gasho marka qodobka koowaad waxa weeye adigoo aan aqoon u lahayn cryptocurrency ha gelin haddii kale khasaara kala kulmaysa qodobka labaad waxa weeye inaad raacdo war been ah ama haybe suuqan cryptocurrency waxa jira dad badan oo warkay rabaan ku sheegay wuxuu ku leeyahay koonka maanta waa kacaya maanta suuqa waa laga qadeynaya waa kan hadda social media waxa lagu soo gudbinayo hayba oo dadka lagu kicinayo haddii aad iska raacdo waxa laga yaabaa coin lagu sheegay inuu qiimihiisu kor u kacayo in meeshii aad ka filayso inuu kor aado inuu hoos soo aado aad ku khasaarto marka had iyo goor wararka been abuurka cid kasta waxay ku sheegayaan haamin sababtoo ah coinska dad baa waxa laga yaabaa inay xiriir la leeyihiin dadka iskale iyaga laftigooda waxay sameeyaan baraha bulshada dad bay lacag siiyaan oo yiraahdaan coinka inay bulgareeyaan oo dadka u xayeysiiyaan si ay iyagu marka lacag badan u soo gasho marka had iyo goor samee cilmi baaristaada adigu kugu gaarka do your own research ha aaminin qof kasta wuxuu kuu sheego hadda dad YouTube-ka aad gasho Soomaalida cryptocurrency ka hadasha hadda qof walba wuxuu kuu sheegaya keer uu sheegay kee bee sheegay marka aad cilmi baaris ku samee coinska marka la taxaliinayo meel laga eegaa jiro la isla garanaya dad cilmiga barato adiga fahmi kara coinka iyo xaaladiisa marka iska ilaali inaad raacdo war been abuura sababtoo ah waxa keenaya inaad suuqan aad ku khasaarto qodobka saddexaad ee keenay in suuq dadka cryptocurrency ku cusub inay ku fashilmaan waxa weeye inaad maad geliso lacag aad u baahan tahay sababta suuqan aad buu u khatar badan yahay crypto waa suuq isbedel badan haddii aad geliso lacag aad u baahan tahay cadaadis ayaa kugu imanaya oo waxa laga yaabaa lacagta inaad ka samri weydo halku wuxuu noqonayaa geli kaliya lacag aad diyaar u tahay inaad lumiso lacag haddii lacala ay lunto ama aad khasaarto aad ka samri kartaa laga rabaa ha iska gelin ilmaha caanahooda ha iska gelin marka had iyo goor maadaama suuqan volatile uu yahay qiimihiisu isbedelo khasaare lagala kulmi karo geli oo isticmaal lacag markaa aad ka samri karto haddii lacala aad khasaarto marka taasina waa muhiim qodobka afraad ee sababa marka in suuqan qofku uu ku filgaroobo cryptocurrency waxa kamid ah amni la'aan ama security-ga haddii aadan amniga wallet-kaaga haddii aad isticmaalayso Binance ama Trusted Wallet oo decentral exchange haddaad isticmaalayso inaad mar walba waxa laga rabaa aad adkayso amniga security-gaaga aad ilaashato marka exchange-ga ama wallet-ka aad alaabta ay kugu jirto hantidaadu inaad ilaashataa laga rabaa dad badan ayaa waaya lacagtooda sababtoo ah password daciif ay isticmaalaan ama link khiyaana tusaale dad baa linkiga ku soo diraya linkiga haddaad gujiso emailkaaga waa la heli karaa passwordadaada la heli karaa had iyo goor marba haddaad cryptocurrency ku jirto ka taxadar in aad link kastoo lagu diro aad link garayso ka taxadar halku waxa weeye isticmaal two verification authentication oo ah in aad amniga ku adkaynaya inaad isticmaasho password adag ayaa isticmaasho hana gujin link kasta oo ku soo diro wallet-kaagana ilaali aad u ilaasho boorsadaada hantidaada ilaasho qodobka shanaad ee kugu keeni kara marka inaad khasaare kala kulmto suuqa cryptocurrency waxa weeye inaad filato faa'iido degdeg ah maanta aad gashay isla markii qofku faa'iido raba qofka wuxuu soo maqlay cryptocurrency lacag baa laga sameeyaa wuxuu soo galiyay isagoo isla lacagtan xaabi marka ma aha sidaas marka wax samir u baahan wax dulqaad u baahan wax long term u baahan weeye crypto ma aha sixir markii bas macnaha aad lacag ka qaban karto dadka guuleysta waa kuwa dulqaad kale halku waxa weeye fakar mustaqbal fog hana ku degdegin markaad iibsanaysa iyo markaad galaysa ha ku degdegin
marka had iyo goor crypto maadaama ay khasaaro badan tahay hawsheedu ay badan tahay waxa laga rabaa inaad mar walba aad filan faa'iido degdeg ah laakiin markaad coin iibsato muddo inaad haysato si aad u samirto intuu faa'iido kuu sameeyo shanta qodob markaa sababa in dadka ku cusub cryptocurrency ay ku fashilmaan kow inaad gasho cryptocurrency adiga wax aqoon u lahayn waa qodobka koowaad lambar 2 inaad raacdo wararka been abuurka ee dadku ay sheegayaan lambar 3 inaad maal geliso lacag aad u baahan tahay oo dinaca aad wareerba ka qaado markaa oo inaad waalato aad gaari kardo amni la'aan oo security-gaagu inuu jilicsanaado oo laga jabsan karo lambar 5 inaad filato faa'iido degdeg ah taas oo aad ugu niyad jabinaysa hadii aad faa'iidada aad weydo gunaanadku waxa weeye hadii aad rabto inaad ku guuleysato crypto baro marka hore samir yeelo amniga waladkaagana ilaasho markaa ha ku degdegin hana ku ciyaari lacagtaada ha ku degdegin hana ku ciyaari lacagtaada wala markaa waxaan ku diyaarinay koorso dhameystiran oo cryptocurrency ah oo lagu baranayo crypto investment iyo trading oo dhameystiran oo ka kooban laba qaybood qayb theory oo qofku buug qaadanayo buug ka kooban 46 page oo Soomaali ku qoran oo cryptocurrency lagu baranayo buugga markuu qofku fahmo asaaska cryptocurrency qaybta practicalka uu gudbaya oo ka kooban 30 muuqaal oo taxanayaal ah oo tafsiir loogu sharaxayo sida cryptocurrency loo maalgashado iyo sida looga targarayo marka hadii aad doonayso ama xiiseynayso koorsada inaad qaadatana link WhatsApp-ka yaala lambarka WhatsApp-ka yaala description-ka ku soo nagala soo xiriir si markaa lagu siiyo faahfaahinta iyo qaabka aad ugu biiri karto marka aad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi